Assalaamu calaykum waraxmatullah. Maanta waxaan soo duubay muuqaal ka bilaabata Baar Ubax ilaa Fagax. Marka hore, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Waxay ahayd galab bacdal casir, jawiga wuu degnaa, nabadna way jirtay alxamdulillaah. Horta qaabka fikirka ee qofka ama ummadda u fikirto waa aragtida saxda ah ama muraayadda laga daawan karo halka uu qofkaas ama ummaddaasi u socdo ama ay ku dambeyn doonto. Haddii ay horumar gaari doonto iyo haddii ay afka goosan doonto, waxaa la eegayaa siday u fikirayaan, kadibna waa laga shaki baxayaa inay dumi doonaan iyo inay waddo sax ahaayaan. Inkastoo mowduucan uu mowduuc kale u yahay oo uu ka duwan yahay midkeena ku saabsan quruxda dalka iyo soo gudbinta muuqaalo ku saabsan caasimadda Soomaaliya, si aan ula wadaagno dadka waddanka ka maqan si ay u dareemaan inay waddanka joogaan camal. Horta sidaan wada ognahay ama aan qirsannahay, ummadda Soomaaliyeed waa ummad aad iyo aad u firfircoon, shaqo jecel, dadka jecel, fadhigii waxaasaanan jecleen oo firfircoon oo aad u furfuran oo bariiskooda soo dhacsanayo. Maasha Allah, hadda saad uga jeedaan oo kale muuqaalka. Maasha Allah, shaqada, bajaajyada, gawaarida, waxa kala socdo iyo sida ganacsiga iyo Muqdisho iyo sida u sii dhismaysa. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa dhammaanteena inuu quruxdii iyo qiimihii waddankeena inuu noo soo celiyo. Maalin maalmaha ka mid ah magaaladan ayaa kici doonta oo noqon doonta tusaalaha Afrika oo dhan insha Allah. Fadlan aan nadiifino magaaladeena. Walaalayaal, muuqaalkan kooban oo yar waxaan ila socodsiinayay anigoo ah Cabdishakuur Xasan. Halkaana waa channelkayga Prince Cabdishakuur. Fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe noo saar. Assalaamu calaykum.